السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش شيدا غالية والله الله الصوماليات أنا هكذا كصاحبنا أستجعلنا هاي مر بقى تشوفتي مر بقى إنت السود وهذا ما أنت وحنا هكذا كسوق أنا نيجي ورالك عبد القادر كرنتو هكذا نقدر نسوي هذا نشوف بالمركه هراء أرنت ما أنت أكهل لينه وأرن runtii dad badan ay wada ogyihiin sawirka uga jeedaan waxaan ka hadlaynaa xaaladda safiitismo waxa ila jooga Soomaaliyeed in ku sheegay walaalka Cabdi Koronto kulmo Koronto soo dhawow aad baad u mahadsan tahay Hodman Show waxa waaye channelkan xoogaa baayo keera mashquulshay hadda rabta inay dib boorka uga jifto barnaamijyadu isdaba taxan yihiin asxaabay adinkana waxa ku dhiirigelin jirteen oo subscribe iyo like iyo share hayde intaas aysan idinka waayin oo garab istaaga walaashay waa ku dhawahay aadna u mahadsan tahay waxaan u jeedaa in qolkaagii fadhiga aad ku sharaxatay sawirka walaasheen Safiitismo intaasna waxay u muujinaysaa garab istaaga iyo muxuu ahaay sheeg sida aad uga dhiidinayso dhacdooyinkii foosha xumaa iyo jaayfooyinkii soo gaaray walaasheen marka oo ku dhawaay channelkaagana aad u mahadsantahay Cabdi Qaadir runtii Koronto walaal markasta garabkayga ah Hodman Show halkaas ma soo gaarteen Cabdi Qaadir Koronto la'aantiis Cabdi Qaadir markaynu dulucda barnaamijkan aan gudaha u galno gabdhaha Soomaaliyeed waxay dhaqanka Soomaalida kaga jiraan meel aad u heer sareysa diin Ilaahay baa ku amaanayo hadda wax hooyo ka qaalisan oo la noqdo horta adduunka ma jirto gabdhaha Soomaaliyeed geesi hada aragtid macallin cid walba qofka soo koriyay qofka meel ka soo gaarsiiyay ama Soomaalida waxa ku jira rag dumar lahayn dib jir bay noqon lahaayeen marka anagoo heerkaas taagan oo Ilaahay xaaladeedu u og yahay oo hatta hadii maxay dhahan gabdhuhuna maxay wiilashana maxay dhahan hadaan gaaray kula dhalan nolosha guul ma leh oo markasta anagu garabkiinii ah maalmahan dambe waxa soo badanaya gabar un baa ooynaysa gabadhi gabar kale kama ooynayso wiil baa ka ooynaya ama xaaskiisa ha ahaato ama hatta way waxa soo baxeen marka jidka marayaan boolis gabdhi iska tumaaya qaar koodna xabadeenay kuwaas kiiskooda hadda ma garino farxiyeen dul taagana wal arrimaha maxaa koos gariyo malaynaysa horta baayo kiisaska iyo dhacdooyinka way kala duwan yihiin gabdhuhu waa laga oohiyay waa run sidaas oo ay tahay aaladda tiknoolajiyada anaga Soomaali hadana horta si qaldan ayaan horta u aaminsanahay gabdhaha kala duwan ee u jeediyay dhacdooyinka ku dhacayaan kiisaskooda waa ay kala duwan yihiin aaladda mobile-ka sida aan hore uga dhawaajiyaba si qaldan ka aaminsanahay ayadoo muxuu ahaay sheeg marxalad jacayl lagu jiro jawi la wada qaadanayo horta in mobile uu meesha soo dhax galo waxaan isdii karnaa waa wax aan kaga dayanayna cadaanka iyo gaalada in macna mobile iska duuba iyo wax la midka sidaas oo ay tahay waxa ka dhawaajisay in gabar walba uu isaahay in nin rag uu ka oysiyo dhacdooyinka qaar waxaan xasuustaa inay gabdho ku lug leeyihiin in laga oysiyo gabadhaas ama ha ahaato in ninka naftirkiisa gabadha ay adeegsato ay gabadha kale walaasheeda oo adeegsato dhacdooyin noocaas oo kala waa ay dhacaan marka laga hadlayo dhacdadan ee dhacdooyinka la midka ah horta qof walba bini aadana waxa ku dhacay waxa la yiraahdaa kun sano ay ka weyn yihiin waayo qofka intuusan dhalan ayaa wax walba oo noloshiisa ah ayaa maxaa ay sheeg la qoray rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf dhacdooyinka hadda dhacaya u jeedid xitaa naftirkooda qof walba wixii u qornaa ayuun buu marayaa ha marka laga hadlayo dhacdada gabadha walaasheena ku dhacday runtii waan arkay social media waxa kale oo ayna saameyn nagu leh bahasha la yiraahdo qabiilka bulshada Soomaaliyeed hadana marka ay dhacdo gabadha Soomaaliyeed ama wiilkan Soomaaliyeed Soomaali cid uu ka garay ayadoo la garanaynin ayaa isla markii waxa la aaday dhinaca caadifada iyo qabiil iyo qurun iyo balaayo la galaya midda kale bulsho waxa soo baxday social media may ka bariisayaan miya dhankaas may ka fiiriyaan ma garanaaye waxay daldalayaan iyo waxa ay sheegayaan arin aysan hubsanin ay ka sheekeeyaan waxaasna xog uma hayaan xaqiiqna uma hayaan waxa ay sheegayaan aniga hadda dhacdadan abaayo iyo wiilka walaalkeena ilaa hadartan waa markii ugu horeysay
oo aan ka hadlo inta ka horeysay kamaan hadlin waayo waxaan uga hadli waaye inta aad noqon lahayd qofka ugu horeeya ee been sheega noqo qofka ugu dambeeya ee xaqiiqada sheego waa sharciyada aniga aan ku dhaqmo youtube-kayga haddaa iraado war arrintaas ma jirtaa reaction aan ka bixinaya waan ka hadlaya haddaa iraado waxaan diidanaa sharafkayga inuu meesha surto ku dhimo runtii horta waxaa ceeba in marka ugu horeysaba qalad iyo sax wixii jira waa goonigeeda laakiin waxaa ceeba in gabar Soomaaliyeed oo walaasha ah gabar way kula dhalatay way ku dhashay way ku dhaxday waa dhalaysaa macnaha meel ay muxuu ahaa isheeg dhaqankeena Soomaaliyeed ee suuban iyo diinteenaba ay ka soo gasho ma lahan gabar in la fadeexeeyo bataatanba waa qalad in muxuu ahaa gabar cawradeeda la soo bandhigo waayay ugu dambeeyana aad bay runtii arrintaas saameyn noogu lahayd oo waxaa jiray gabdho badan oo Soomaaliyeed oo la soo dhigay social media waa qalad aan ka fahamsanahay ayaana keenayso waxaa xasuustaa xitaa inkastoo bil Ramadaan ay tahay haddana marka xaqiiqada aad ka hadlayso waa run in bulshada muxuu ahaa ishak sida wax lagu fahamsiin karo lagu fahamsiiyo marka laga hadlayo website-yada waxyaabaha oo xumaanta baahiyo oo soo bandhiga marka laga hadlayo waxaa arkaysaa in gabdho badan oo Soomaaliyeed oo muuqaal lagu qayaanay iyo qaar si qaldan looga duubay iyo waxyaabo in macnaha la soo dhigayo arkaysaa marka la isku soo dardarana in rag horta waa gacanta koowaad ee geysato dhibaatooyinka gabdhaha muxuu ahaa ishak lagu sameeyo sawir waxaan iraahdaa aniga wajigan intaan waxaa lagu tiriyaa inta badan inuusan cawro ahayn laakiin wuxuu cawro noqdaa la yiraahdaa gabar markaa qaadatid markaas kadib baa laga yaabaa in macnaha xoogaa in rag ay arkaan iyo inay cawrana laakiin inta badan waa iska caadi iyo gacmaha intaan marka intaas wixii ka baxsan in bataatanba kaamirad adigana aada isaga duubin aada iska sawirin amaba aanan sawir lagaaga qaadin iska badaa ninkii iyo naagtii isqabay oo xalaasha isku ahaa waxa ay sameynayeen gogosh ku sameyn lahaayeen inay iska duubaan taas horta bataatama meel ka soo gasho malaha xitaa waxaa loogu talagalay nalkaa shidan in la damiyaa loogu talagalay waxaa intaasoo dhan loo qarqarinayay ma adina intaa mobile soo qaadata duubeysaa baahida keeni karta iyo waxa keeni karo iyo waxa laga dhaxli karo aniga ma fahamsanin bal mii sheegi kartaa wax laga faa'iidi karo gabar halkan aad uga salaamayo leedahay farxiyo kaba yare fanaanada baa hadda ka hor waxay tiraahday gabdhaha marka aad ula talisaa waa aragtay farxiyo kaba yare saaxiibta aad u salaamayo waa gabar marka fariid oo runkan kama gabato waa aragtay soo caawiso waa aragtay laakiin qalbigeeda waa nadiif hadalkan way gantaa way sheegtaa marka waxay tiri abaayo iblis waa nabaraya joojiye waxaan almiina hadina joojin wajigeena daysta haddii waxay tiri waxa aad diraysiin sheekadu badatay tiri wax ninkan waa waalan karaa way tiri marka hadduu xitaa ninkaaga yahay ninkan aad muuqaalka u diraysid ama telefoonkaaga xataa maalmaha waxa soo baxday marka la wato telefoon smartphone casriga la wato smartphone gmail waxay sii galayaa gmailka la jabsan karaa horta dhaqan wanaagsan ma aha in wax la iska duuduubo gmailka jabsidan iskaba soo tagba ما استعمالها موبايل ابلكيشن ما استعمالها ابلكيشن كمركا استعمالي واتساب كان كسو قادنا تصالها wuxuu ku leeyahay allow u dheh gmail ka contactigaaga iyo waxa personal information kaaga waxa oo dhan ayuu helayaa waxa u fasaxaysaa muxuu ay sheeg sawiradaada photos kaaga u fasaxay marka u fasaxdid yaa meeshan joogo oo gaal waska qaadan kara haduu arko waxyaaba ama wax oo yani ishak suurtagal ah hadoo marka wax walba oo horta la duubayo wax walba in la digtoonaado aad u fiican tahay sheekada farxiyo kaba yarana waxay tiraahdaa warqad soo qabto waxay tiri waa waalan karaa adiga lafteeda telefoonka hadda wax ku shubatid oo private isaga samaysatid wixii waa la xadi karaa qof baa kula isticmaali kara emailka jabsan kara waxyaabo badan baa telefoonka maalmahan settingka bas baa wax kasta laga helaa qofka wax walba way fudud yihiin adduunkan marka horta gabdhaha oo dhan waxaan u soo jeedinayaa please inaad taxadartaan oo is ilaalisaan waa muhiim nin ama ha ku qabo ama la sheekayso ama saaxiib la aho aday ku taala kaas ana taa misi galeen safit ma sheekadan usoo laabanaya intaadan hal mar usoo laabanin waxaa jiro waxba keena horta mugta waxaan asalkooda hore waxay ka yimaadeen gabar Soomaaliyeed oo baahan oo shopping aan haysan oo Afrika Soomaaliya ama Kenya hadba meesha noqotaa joogto ayaa waxa xiriir la sameynaysaa wiil
jooga Mareykanka ama dibadaan lacag buu haystaa ama Yurub meesha iska dheh meeshu ama lacag joogo, hayst meesha lacag buu dawladda ku jira haystaa. wax sameeyay lacag buu haystaa gabadha masaakiinta ah ayuu wuxuu meel u saarayaa bil walba kiradeeda iyo shoppingkeeda u saaraya muxuu ka rabaa marka wuxuu ka rabaa in uu ku micnaa ii sheeg sawiro iyo waxyaabo anshax darro ah oo yani meesha ila nafle aan ahay camal sheeko ah in waxaas uu ku noolaado ayuu rabaa sida micnaha inta badan ragga ay ku andacoodaan markaas gabdhihii waxa arkaysaa in ay dirayaan fiidiyoyadii wixii waxa faafi jiray wixii ku faafi jireen micnaha wiil loo diray hadhow markii xiriirkii wixii dhamaado asagana ama saaxiibaa kasii dafayaan ama muxuu ay si ku baxay aha fiidiyoyadii hortaasay ku bixi jireen laakiin waayahan dambe walaalay waxaa soo baxay nin iyo naag isqabo oo video ama adiga maaragtay faro wax la yiraahdo hebel fara laga hayaa iyo heblaaya fara laga hayaa iyo farna hadduu soo baxay cusub yahay farkaas inta lees qababa waxaa loo taxadirayaa oo qof walba uu galaya difaac sidoo adiga kaaga qaban lahaa faro iyadana wuxuu ku dadaalay faro inay ka qabato fara la iska qabanaya dhibaatada horta meesha anaga nooga timid fara qabashadii waxaan hadda socdo gabadhan ku dhacayna waa faro laga qabanayo waa ma wax kale maahan waa dabcan qofkan macnaha saa ugu rakaatayso noloshaada adiga faa'iido qofkan ugu qabtid waa fara uga qabanaysa haddii ii sheeg rabtid saas dhaqaale noocaas si haddii kale muxuu ahaa suuqan ku galno badgada adiga magaalada sii galisa hamin dhaweyto ma seexan rabo sirta ku jira waxaan daawad fiitusma horta Allah xaq lagu caabudan ku dhaarto hurdo dhan ma seexan subaxdii miyaa ma aqaan baa xooga hurdo waxaan saddex xitaa wax yar gamaan wax arwazaad camal ahan gamaan hurdo ahayn safiitusmo ayadoo dhaaratay horta aniga markasta aan aaminayo wixii afkeeda kasoo baxay safiitusmo qof dhowrsan la yaqaano waa gabar maaragtay ilaa xad miskiin ah intaan ay ka arkay marka ayadoo dhaaratay horta wixii bilow ila dhamaaday sheegtay ninkan say isku barteen in xataa ay uga shakisan tahay inaysan caafimaad qabinin ayadu markaas sharafteeda inuu weerar ku ahaa ninkan oo ku yiri mid sharaf leh hadana sharaf la'aan ka dhiginin mid la jecel hadana dadka dhan kugu dirinin lacagta uu ka dalbanayo wax walba inuu ku jid gareenayo naaga kale xataa ula shukaansanayo waxa gabadha dhulka ku jiidayo inuu damcayo tamar inuu dilo horta naftu mar bay go'daa ilaahay baan dadka maaragtay abuurtay oo dilaha kulli nafsu daqiiqatul maut naf kasta way dhimanaysaa adduunka qof baaqa ku ahaanayo noolaanayo maalmaha lagu wado adduunka ay joogaysaa waa dhimanaysaa marka dhimatidna waxoogaa familigaaga iyo ilmahaaga iyo ninkii marka awood joogtay waxa ku asxaabtada ku soo xasuusanaya Soomaalida waxa dhadaan dhinta kabiisa ka horaan cid ku soo xasuusan doonta malaha horta waa jeclaan lahaa qof kasta inuu ilaahay ka cabsado oo la isnabad geliyo teeda kale gabar Soomaaliyeed oo walaasha ah oo waxay dhex mareen oo aad qabtid ama aad shukaansanaysid wadaaba inaad sheekada qabitaan ba meesha hadda qoyskan ku jiray xaaskaaga oo xushmad iyo karaamo ka mudan oo ilaahay doobadkaasi ilmaha hooyadood ah oo hadduu ilaahay wax idin kala siin xataa gogol iyo nolol idin dhex martay see ku keentay inaad intaad wax ka duubtid suuqa marisid oo mar ugu hanjabtid taasoo raganimo maaha waa daciifnimo meesha ugu dambeysay ninka ragga ah waxa lagu yaqaanaa nin rag ah marka tahay waa inaad gabar ilaalin kartaa mas'uul because of gabar markasta marka anaga gabdhanahay aabahaba ka mas'uul walaalkaba ka mas'uul adeerka balaabla shaqadaas u dheertahay markii gabdhaha inta soo mas'uuliyad la idin ka saaray hadaa xitaa ninkeeda tahay mas'uul bad ka tahay oo maaragtay adiga un bay maaragtay kula joogtay kula nooshahay marka wixii dhan ba intay maalmahan rag ku tunteen baa waxa yeeraysa gabar un baa oynaysa gabar un baa wax laga duba gabar un baa lagu sameeyay nin rag ah waa kii gabadhiisa difaaca ubadkiisa difaaca walaasha difaaca hooyadina difaaca nimanka waxa dhaca saddex baan ka nabadgelinin marka saddex aan ka nabadgelin waxa ku jirta hadaan nin caydi hooyadiis mise naagtiisa mise walaashiis waa idin kala dhamaatay waana sida runta ah marka waxaas oo ayadoo la fiirinayo maalmaha waxa gabdhaha ugu soo hormaray dadkii wixii dagaalka marka laga soo tagaba nimankii qabay marka anigu mamaradii gabdhuhu marka mamaradoodii bay ka cararaan oo waxa way marka gabadha ninkeeda ay ka cararto ninkeedii dib kala dhaxay xagee gabadha ku noolaan kartaa gabadhii seebad qabo heli kartaa see gabadha maskaxeeda ku caafimaad qabaysaa gabar ninkeeda aan kalsooni ku qabin nin dhan la noosho la joogto oo soo guursatay oo wax ka dhaxeeyaan kalsoonida horta oo ninkii naagta ka dhaxayso waa la wada yaqaanaa mobile ma aha video ma aha sawirna ma aha qofka horta waa haduuba caafimaad qabo horta waxaa la yiraahdaa maala yacni hadaa macnaha ka dhigatid wax iska caadi ah hadaa ka dhigatid xadiis dhan baa wuxuu ahaa man laciba ma la yacnihi
laqiya maa laa yardih wuxuu la kulmaa wax uusan raalli ka ahayn oo la kulmaa haddaa fududaysatid mobilkan iyo wax lagaa duubaayo runtii aniga kalsooni maahanaan dhihi karaa gabadha maanta kalsooni iigu qaadaysa in mobilkeeda aan iska duubno ama wiilka kalsooni kuugu qaadayo in mobil layska duubo taa haddaba kalsooni ma ahaan xisaabta ku darsada sawirkii iyo videoga ama hadduusan asaga bixinin qolo kala baxsanayso mobilkan fasax uma baahna waa lala bixi karaa waa la dhibsan karaa wax kastaa kugu dhici karo wax kastaana ku qabsan karo bataatanba horta yaan lagugu soo taagin madaxaagoo faydan xaafadaha qaar oo faydan yaanan camera lagugu soo taagin haddii aada sixran tahay oo aadan caafimaad qabin oo aada waalan tahana hadda taas waa goonigeeda oo aanada issue difaaceedana kii kula dhashay iyo waalidkaaga iyo walaalaha iyo bulshada soomaaliyeed hadday ogyihiin inaadan caafimaad qabin taas hiila ayagaa looga baahan yahay qofkaas isagaana dhib qabo laakiin adoo caafimaad qabo videogii lagaa duubay muxuu ay sheeg mas-uuliyaddeeda adaa qaadaya horta ko aad iyo aad marka bulshada soomaaliyeed gabadha soomaaliyeed fadlan anaga hadda waa sheekeynaynaa muuqaal ma adeegsanayno waxaa laga yaabaa halkaas sawiro meesha noo saaran inaan isticmaalno oo gabadha walaashay ay gurigeeda ugu talagashay marka aad reaction bixinayso gabar Soomaaliyeed aad ka bixinaysid ha isku dayin inaad sawiradeeda soo qaadatid ha isku dayin inaad videoyada soo qaadatid waayo qof kale oo aan arkin ayaa arkaayo dib u soo raadinayo muxuu ay sheeg adiga qayb waxa ka qaadanaysa ina gabadha walaasha ah ina fadeexaysato waayo ceebta walaalka marka aad asturto aad qariso adna ilaahay taada asturaya adigana Allah subhanahu wa ta'ala taada ayuu asturaya marka isku day inaadan ceeb sii faafin reaction hada ka bixinayso waa hadli kartaa afayeen oo noqon kartaa gabar walaasha oo dulman oo hadal lama diidana cid haysata male laakiin ha ka bariisaynin clipkii iyo videogii fadeexadii waxa leedahay waxaan ambaareynaya waxaan ka xumahay videogan aan ka xumahay waa kana videogaada soo dhigooyo maxaa ka xuntaa walaalo gacali ama walaalay gacaliso isku day markii inaadan video soo qaadanin inaadan qof ceebtiisa aadan faafin isku day mid kala jirta sababtuma waxa laga hayaa muuqaalo badan oo YouTube ku jiro iyadoo caadi ah hadlayso oo fadhiso waxaas dhan baa la qaadan karaa aniga hadda videogan kuma soo qaadanina soo hore u sheegto muuqaal ama hal picture ay leedahay aan kaas ka ahayn kaasna aniga soo sameystay sax waa awoodna inaan sameeyno laakiin waxay tiraahday bal muuqaalkeeda qofkii dib u daawaday safiitismo aqliba uga siyaaday cimriga ilaaha bixiya laakiin aqliga hal saac iyo barbiya ma aqaan ha waliga intaas muuqaal ma fiirsan adduunka waraysi hiit oo madaxweynaha iyo rasaaraan sugayaan arkayo waliga intaas maaragtay waraysi ma fiirsan meel fariistis ma kor waxay ugu noqotay xaalad cajiib ah marka waxay dhahaysaa biliis iga daaya ay wadwadnina meelaha ay gilgilnaysan faraha iga qaado safiitismo hadaladii lagu yiri ay noo sheegtay afkeedan ka xaqiijiyo waxa kamid ahaa dadkan ku nacsiinaya mid la necab yahay noqonaysa hees uu qaaday Khalid Kamil waxa ku jirtay dib baan ka soo jeclaaday Khalid Kamil Soomaaliya qofkii qaaday ma xasuusto qof fanaan ha ma fanaan baa qaaday dib baan ka soo jeclaaday asaguna haban u maleynaya hadii uu Khalid ga dhac galin baan ka bixinaya buuxda marka horta safiitismo ay cid ku nacaysa cid ku soo jeclaatay mooyaan horta cid ku nacaysa adduunka ma jirto sumcad iyo gabarnimo iyo sharaf iyo cod wanaagsan iyo akhlaaq iyo wadaniyad iyo hooyo ilmo koris loo wanaagsan oo ubadkeeda korsto akhlaaq leh baad caan ku ahayd meeshii aan shalay taagnayd iyo kasi fiican baa aniga iyo inta qalbigaaga u taagnaan doontaa insha Allah qof kasto bilo aadan ina cawra ku taala waa la ogyahay qof qaawiyo qof aan qaawinba khalad haduu dhacana kulay waxa waaye subax kuma dacaanada dibadood la qabay wax walba dib ay ka hagaagi doonaan waxaan marka kaaga aan ka codsanayaa horta inaad moraal jabinin inaad isdhin nolosha ka dhacday inaad isdhin waaceebaysan tahay inaad isdhin sharaf malid inaad isdhahdid wanaag malihid iyo bulshadu wax kale ay kugu barteen safiitismadii shala aan naqaanay baa noo ahaanaysa iyo mid ka qiimo badan iyo ka qaalisan oo ka geesisan qof bilow aadana oo aan khalad sameyn karin ma jiro laakiin dadka ilaahay baa qofna u dimariya qofna u hormariya qofna ma sameeyaba waxaana way dhacday waxaan aaminsanahay shabaq lagu gaaday in badan inaan lugta la gashay laakiin laga yaabay gabdho inay ka shaqeeyeen oo dad kale ay ku lug leeyihiin aad iyo aad ninkan ba macna gadaashiisa la taagay laakiin meesha shalay noo joogtay iyo ka wanaagsan baa anigii inta ila qalbiga ah oo Soomaalida wanaaga jecel oo joogi doonta waxa tahay hooyo sharaf leh fanaanad qaran abwaanad codkeeda ku difaacday in badan umada Soomaaliyeed meesha noo joogtay iyo meel kasi wanaagsan baa noo joogi doonta qalbiyadana baaqi ba ku ahaan doonta
soo marka waxaan kaa rabaa abaayo haddii muuqaalkan uu kusoo garo ay daawanaysid inaad horta niyad jabinin inaadan khalad iska dhaadhicinin wax hadda aniga problem ahoo dhib ahoo ku qabsaday ma arkin laakiin soomaalida wallaahi marka runta laga hadlo midda kalena dhowr maalin ay wadwadayaan waa meesha uga gudbayaan wax hadda videoyadaas unbaa daran videoyadaasna waxaan codsanaynaa in gabadhaas videoyadeeda cid kastoo soo gelisay youtube hadduu ku jiro meel wuxuu leeyahay laga jaro trim wax la yihahdo leeyahay videogaasoo youtube-ka ku jira ayaa laga jari karaa marka inaad taasna samaysaan isku daya taa inaad samaysaan isku daya Safiya tusmay mar walba waxaan nahay garabkaaga iyo gaashaankaaga mar walba waxaa jecelnahay guushaada mar walba waxaa tahay gabadheeni oo sumcadii sharaftii shalay noolahayd noole cid Soomaali ku nacsiin karta iyo cid qalbigaaga xumaan ku abuuri karta midna ma jirto kaas waa hadalkii ugu dambeeyay Safiya tusma gool ha jirto oo ha joogto hooyo Soomaaliyeed oo sharaf leh fanaanad Soomaaliyeed abwaanad Soomaaliyeed oo qalbiyadeena baaqi ku ahaan doonto aan weligeed leeci doonin koronto maxaa leedahay ugu dambeyntii ugu dambeyntii waxaan leeyahay hal laga daayay gabdhaha Soomaaliyeed fadeexada iyo xumaanta lala daba joogo ilaaliya sharafka iyo sumcadda gabdhaha Soomaaliyeed waayo gabar inta maanta amaan mooyaane wax kale oo gabar ay naga muteysan karto haba yaraatahay ma jirto xumaan intaa la-eg oo gabar Soomaaliyeed ah ka faafisaana beri adiga ayay walaashaa qabsan doontaa waxaa maanta fashid ayuunbaa adigana beritoole ku yaala oo hadda gabar Soomaaliyeed ceebteeda ka shaqaysid adna beri ceebahaaga waa laga shaqeynayaa maanta qof walaalo masaakiin ah oo aanan cadkiisa kaa goosan karin aada dhibaataysidna beri qof kaloo dhibaato badan oo shar badan kolley bulsho lagama waayay qofkaas unbaa heli doontaa markii qof masaakiina lagaa celcelin waayo marka isku day inta beri aada af libaax ku dhici lahayd maanta oo muxuu ahay sheeg wax wanaajin kartid in dhamaan aad wanaaga ka shaqeysaan insha Allah Safiya tusma hadaladeeda waxaa kamid ahaa hameen dhaweeyay markaan daawanayay haddii waxa ilaahay markhaati iyo aweytirin waa hadalka saameynta maskaxda ku yeeshay waa oo arrintan anigu dhaliyay inaan ka hadlo waxay tiraahday haddaan sidii Caysho ayada quraan u soo degay bilowgeeda hore ku bilowday kale qof kasta oo wareysigaas daawaday in baad dareemi kara xaalad Safiya tusmo say daacad u tahay say qof qalbi wanaagsan u tahay sida ay u rabto wax walba wanaag inay ugu sheegto ay been uga ilaalinayso marka warkiyo kooban barnaamijku waxaa noo soo xiraya walaalka koronto asxaabta aydu ku fogaanay waxaana la fogaatay arrinta walaasheen Hodman Show hala subscribe gareeyo filinkan hala gaarsiiyo meel walbo si muxuu ay sheeg gabdhaha Soomaaliyeed dadka ragga inay dhibaateeyaan ku fakaraay ay u daawadaan tan iyo kulantideeni dambe Hodman Show barnaamij lamid ah walaashay ay idin daadihinaysa intaan dib isugu wada kulmi doono anigii iyo walaashay Hodman Cadceed waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh